weydiinay. Raxmaan Raxiim runtii adan maanta isku dayo maayarka Boorama ku haboon ee ugu haboon waxaan oran lahaa Professor Ridwan sababtoo ah waxa fiican aqoon la isku tixgeliyo ninka aqoon badan oo maanta gobolka joogay ma jiro marka waxaan oran lahaa Professor Ridwan ninkaas ku haboon ninka loo daayo iyadoo wax ka bedeliga gobolka sababtoo adiga arkaya gobolada ugu liitay weeyaan maanta Boorama oo magaalada madaxdii labaad ay arkaysaa wadooyinkii bartaka magaalada sida ay u jajaban yihiin marka waxaan oran lahaa sababtaan ku sameeyay waxa weeyaan adduunyada wax la isku tixgeliyo aqoon ma aha iyo cilmi ma aha inaynu qabiil iyo waxa weeyaan xildhibaanada la kala iibsado marka waxaan oran lahayn in Professor Ridwan lagu tixgeliyo aqoontiisa waayo waxa weeyaan waa nin u qalma waa nin aqoonteedii leh waana nin PhD oo la wada garanayo waxa weeyaan cid maanta shaqo kaga jirta ma jirto marka waxaan oran lahaa isbeddelka la raadinayo waxa weeyaan dadka aqoonta leh lagu tuumayo waxa weeyaan lagu tixgeliyo oo ku eegnay dadweynaha ku dhaqan gobolkan Awdal sidoo arkaan xilka dadweynaha ku dhaqan gobolkan Awdal isagoo aragtiyan ku cabir alxamdulillah horta Ilaahay baa mahadle doorashada inoogu dhameeyay si nabadgelyo caafimaad inoogu dhameeyay balse waxaan halkan digniin uga digayaa golaha deegaanka sanadkan la doortay waad ogsiin golihii deegaanka hore way saaqideen waxay qabteen ma jirto dhibaato maanta taagan wadada burburkeega waad arkaysaa waxaan leeyahay golaha deegaanka la soo doortay waa dad babacadka inii taagnaa marka waxaan leeyahay ugu soo bixi karaa ama ku aqooyo in laga dhigo maayir ya aragtayas leedahay uu ku aqooyo maayir laga dhigo waxbuuna ka bedeli karaa dalkan wallahi waxaan oran karaa ninkii ugu haboon ma garanaysaa ee soo xulaan inuu si fiican u shaqeeyo oo uu bulshadiisa ma garanaysaa maxaa heedanay daryeelo wadada jajaban uu hagaajiyo nidaamiyo dadka daryeelo ayna noqon meel la isku qabsadoono mooshinyo wax la isdhex eriyado inay noqon ma leh riwaayadaha ka ilaaliyaan ma leh markaadu ma jiro qof asleeda uu ku aqooyin la geeyo maayirnimada wallahi horta daan waxaan suran lahaa in kastooba aanay golayaasha isku ereeyaan ma garanaysaa xisbiyada isku ereeyaan laakiin saanu laba nin uma suran lahaa ninka Sheekh Maxamuud iyo ma garanaysaa Ridwan labadaan nin baa u qalmo madho lahaa labadaan nin miduna laga dhigo ya ragaasan laakiin soo dhaweynaya aad baan soo dhaweynaya dadku aslee waxa noqonaya oo rajinayna hadaan reer Boorama nin akhlaaq diineed leh oo kaliya وحين صومر مشاكل به يسلده كل الليرتر عصب ويكجرا قار wanaagsan oo fara badan oo ku jiraan oo rajada aan ka qabnaa inay laakiin waxaan u baahanahay dhalinyartaasi iyaga isku tagi doonay inay noqdaan ay eegaan miisaanka ay saaraan xagga diinta ay soo daashatay niman aan urbanization iyo magaaleynta garanayn oo maamulkii hore una wadooyinkii la meeyda ahaa ee magaalada Boorama ay burbureen saa awgeedna waxa ku haboon laba nin oo cilmi leh oo ku jira golayaasha deegaanka cusub Professor Ridwan iyo Professor Maxamed Diiriye Cabdi labada nin ayaa ugu khibrad roon waliba waxaan anigu oran lahaa in Maxamed Diiriye loo daayo oo laga dhigo maayirka cusub sababta ku sameeyay wuxuu ka soo noqday wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliya iyo wasaaradda dib u dejinta Soomaaliland xilligii daayiriyay xilligii siiraayo run ahaantii kulli waxaan ka hadlayaa inuu wadooyinkan iyo magaalada sidee tahay maanta laakiinse waxaan ogahay maadaama ay dadkan dhalinyarada soo wada baxday ay yihiin dad u badan aqoon-yahano ya ku kalsoonaayeen inay magaaladan wax ka bedeli karaan insha Allah niyo laakiin waxaan rajaynayaa inaan magaaladan bal wadooyinkayga anaga wadooyinkan ku dhimanay kaliya xanuun baan qaadnay niyo ya marka waxaan rajaynayaa balna magaaladan wax laga qabto niyo oo dariiqii nimankii hore ee maaragtay ay ku shaqeynayeen ayna ku shaqeynin waxa loo doortay ee yani markaa ah inay madax waddanka ka noqdaan inay run ka inay daacad noqdaan inay wadaniin noqdaan inay markaa noqdaan dad duco qabayaala ayaa loo baahan yahay oo cadaalad ku shaqeeya oo aanay noqonin dad yani maaragtay isriixriixa sidii raggii hore oo kale waayo taasi waxay keentay horumar la'aan iyo bilicdii yani magaaladii oo yani maaragtay khashin iyo qurur ay ka buuxsantay ninkaas maayirka cusub ee magaalada ka shaqeynaya waa ninka hal doortan leeyahay gadabuursiyow aad ku soo beenaysaa oo sidoo uu ka beri karaa dalka sababka khadeeyo man u dooran lahaa ninkaan maayirka maanta u dooran lahaa waxa weeye ninka la yiraahdo Dr. Ridwan oo ninkaas aan u dooran lahaa maayirka magaalada Boorama Dr. Ridwan aad ku soo beenaysaa waxa uu soo been lahaa ninkaas waa nin PhD oo ka aqoon badan ninkaas waa nin PhD oo ka aqoon badan ninka soo ka soo baxay gobolka Awdal maadaama u baahanahay dad
magaaladeennan dhisa oo wax badan inoo qabta oo magaalada bilicdeeda bedela dee nin aqoon-yahana loo baahan yahay oo ka aqoon badan